الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo ah maalin Arbaco ah taariikhduna tahay 12 bisha Juun sanadka 2017 miilaadiga kuna beegan 26 bisha Ramadaan sanadka 1438 hijriyada waxaad ku soo dhawaataan wararka saacadlaha ee BSS TV oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. Mareykanka macallimiinta gobolka Colorado ee dalka Mareykanka ayaa loo ogolaaday inay iskuulada ku dhex qaataan hub si ay ardada ugu difaacaan hadduu wax khatar ah ku yimaado. Macallimiintan ayaa maalmihii la soo dhaafay tababar loo sameeyay. Tababarkaasi oo ku aadanaa sida wax loo togto iyo sida loo adeegsado hubka hadday dhacdo arrin degdeg ah. Tababarkan loo sameeyay macallimiinta ayaa imaanaysa kadib markii sanadkii 2012 uu iskuul ku yaala gobolkaasi uu ka dhacay weerar si aad ah loogu baaba'ay. Sacuudiga boqortooyada Sacuudiga oo bilowday in ay dalkeeda ka soo tarxiisho xoolaha laga leeyahay dalka Qatar. Xoolaha ay Sacuudiga dalkeeda ka soo saartay ayaa isugu jiray geelo iyo idooyin. Xoolo dhaqatada dalka Qatar ayaa arrintaani walaac ka muujiyay ayagoo sheegay in aysan xoolahooda dalka Qatar uga helaynin deeq ku filan. Waxa uuna sheegay afayeen u hadlay dowladda Qatar in xoolaha dalkooda soo gaaray loo sameeyay xirooyin ku meel gaar ah ayna halkaasi gaareen dad ku takhasusay xanaanaynta xoolaha. Xoolaha laga soo raray dalka Sacuudiga ayaa tiradooda lagu qiyaasay in ay gaarayaan 15,000 oo geel ah iyo 10,000 oo ida ah. Waxa ayna wararku sheegayaan in la arkayay in xoolahaasi laga soo gudbinayay xuduudda Sacuudiga iyo Qatar. Sacuudiga Mohammed bin Naif oo ahaa dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudiga Arabiya ayaa xilka laga xayuubiyay kadib markii uu boqorka dalkaasi boqor Salmaan bin Abdul Aziz uu soo saaray bayaan ku aadan in xilka dhaxal sugaha lagu wareejiyay Mohammed bin Salmaan oo ahaa dhaxal sugaha labaad. Amir Mohammed bin Salmaan ayaa ah wasiirkii difaaca ee dalka Sacuudiga asigoona lagu tirinayay inuu yahay wasiirka ugu da'da yar ee xilkaasi haya. waxa uu da'diisana lagu sheegay in ay tahay 31 jir. Mohammed bin Salmaan ayaa noqonaya dhaxal sugihii ugu da'da yaraa ee soo maray boqortooyada Sacuudiga Arabiya asigoona horkacaya howlgalka militariga ee Sacuudiga ay ka wado dalka Yemen ee caasifatul Hazm. sidoo kale Mohammed bin Salmaan ayaa waxa ay wararku sheegayaan in uu yahay shakhsiga wax ka bedelay dhaqaalaha dalka Sacuudiga wuxuuna waxbarashadiisa ka gaaray heerka jaamacad asigoona haysta shahaadada bachelorka. Sacuudiga dhaxal sugihii hore ee dalka Sacuudiga Mohammed bin Naif ayaa la mubaayacooday dhaxal sugaha cusub ee dalkaasi Mohammed bin Salmaan. Mohammed bin Naif ayaa horay u soo qabtay xilal kala duwan oo ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Sacuudiga asigoona wax ku bartay caasimadda dalka Sacuudiga. waxa uuna waxbarashadiisa ku dhamaystay dalka Mareykanka asigoona ka soo baxay kulliyadda siyaasadda. Mohammed bin Naif ayaa sidoo kale horay xubin uga ahaa hay'adda la dagaalanka muqaadaraadka ama waxyaalaha maanka dooriya. waxa uuna sanadkii 2009 bishii Agoosto ka badbaaday isku day dil ah oo loo sameeyay. bishii November sanadka 2015 ayay ahayd markii loo magacaabay inuu noqdo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi. daawadayaasha waxa ay aragtidooda ku aadan xilka laga xayuubiyay Mohammed bin Naif ku soo dhiiban karaan baraha bulshada sida Facebooka, Twitterka, YouTubeka. waxa intaas inoogu eg warka saacadlaha ee aad kala socoteen telefishinka BSS TV oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. cidii uu dhaafana waxa ay kala socon kartaa bartaan internetka ku leenahay oo ah www.bssomalia.tk.